maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco Qurbajoog iyo dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa maanta si cad u bayaamiyay inay simug iyo miisaan la u taageersan yihiin musharaxnimada madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. Mas'uuliyiintani waxa ay sheegeen in waxqabadka xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay talada dalka haysay ay ka hirgelisay guud ahaanba dalku yahay mid aan la dafiri karin. waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu leenahay oo ku boorinaynaa xubnaha kale ee xisbigana waxaanu taageersanahay murashaxnimada uu ku dhawaaqay madaxweynuhu ee uu yiri maanta murashax baan ahay waxaan doonayaa inaan howlado mar labaad maadaama uu madaxweynuhu muujiyay waxqabad ballaaran laakiin maanta waxaa muuqda waxqabad badan oo madaxweynuhu muujiyay xaq uu leeyahay dastuurkaasi waxaanu ku taageersanahay murashaxnimadiisa waxaanu leenahay xubnaha kale xisbiga inay odayga isu daba taagaan guud ahaan hadday hoggaanka tahay iyo hadday xubnaha golaha dhex tahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland sharaxaada uu is sharaxay maanta muddo badan baanu naawilay waana ku farax inuu mar labaad soo sharaxo dastuurka qaranku hadduu ogol yahay waxaan oranahay mar saddexaad iyo mar afraad baa soo sharaxo waayo qofka marka la biyo dhiijiyo ama wad kalgacayl baa ku gala sii jiiritaankiisa ama waxa sira qodhay xarada halkii aad doonaysay mugay madaxweynaha qaranka meesha uu maanta qaranka dhigay ee uu geeyay waa meel tilmaaman aad iyo aad baan ugu diirsan madaxweynaha waxaan leenahay waad ku mahadsantahay madaxweyne inaad soo sharaxdo annaguna hiil iyo ho dhinacaaga ku soo saaray baa ku nool qarankii ku doortay baa ku jooga waxa ila muuqata inaanu kursigaaga iyo xisbiga kulmiye midna warwar lahayn in gabigiisa waxaan ka xasuusnaa waa markaan cabiro qaabka ay u taalle haddii laba libaax hilib dhex maro waa ku muranta macmacaanka iyo kuruska waa la isku maaga misna waxa heshiiyeen markuu dhidaru muuqdo waxaanu mar walba taageernaa waxaanu hambalyo ballaaran halkan uga dirinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sharaxaada labaad ee uu soo taagay madaxweynuhu xaq buu u leeyahay madaxweynuhu wax aan dastuurka ka baxsan ma oran wax sharci ku hadlay waxaanu leenahay madaxweyne waanad u qalantaa xaqna waad u leenahay waanan kugu hambalyeynaa waanan kugu soo dhaweynaa insha Allah taala waanad ku guuleysanaysaa hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan kaloo leenahay shacabka reer Soomaaliland indhihii fayow way arkayaan madaxweynuhu intii muddadii xilkay ku hayay ballanqaadyadii uu ku ballanqaaday in boqolkiiba 85 ama boqolkiiba 90 ay qabsoomeen marka aan la iskaga baxayn waxaan leeyahay odayaashii gobolka ama odayaashii degmada ayaa dhameeyay xakan waxaan taageero kal iyo laabo ugu soo jeedinaynaa hadaan nahay xogiyada gobolka Togdheer iyo guud ahaan bulshooyinka ku nool gobolka Togdheer inaanu taageero hiil iyo hoobar la garab taagnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan leenahay shantan iyo shanta ku xigtiyo inta kaleba waxaan insha Allah inta sharci loo gol yahay inoo hay saabka iyo maayarka iyo gobol iyo degmaba loo dhayahay oo aan ku taageerayno Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne shantii sanadood ee aad joogtay markay ayam wax yar ka arsaynayeen runtii wax weyn oo la taaban karo oo muuqda ayaad qabatay waxaanu kugu taageeraynaa haddaan nahay shacbiga magaalada Burco ragay soo doorteen ee golaha deegaanka ee shanta dambana aad isu soo sharaxdid magacaygu waa Cabdisalaam Tuude waxaan ku noolahay waddanka Ingiriiska magaalada London halkan waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa family-gayga xaaskayga iyo carruurtayda marka labaad waxaan aad u soo dhaweynayaa musharaxnimada madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay qurbajooga ku nool waddanka Ingiriiska waxaan leenahay in sharciga iyo dastuurka ayaa u ogol inuu mar labaad madaxweynuhu isa soo sharaxo waxaan leeyahay waxaan u sheegayaa dadweynaha iyo dhalinyarada Soomaaliland waxaan ku dhiirigelinayaa inay dhalinyaradu madaxweynaha taageerto
taageeraysa waxbuu inoo qabtay waxbuu inoo yahay madaxweyne dalkaaga waad dhistay waxaana waad u qabatay yaa waanan ku garab taagnay cabsaaq faarax cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.